kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday wakaaladaha biyaha iyo ururada ku hawlan dhinaca biyaha ee gobolada Murudijeex Togdheer Sanaag Awdal iyo degmada Wajaale kulankaasi oo socon doona muddo 2 cisho ah ayaa muddada u socdo waxa lagu lafaguri doonaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhaxeeya wakaaladaha biyaha iyo ururada ku hawlan dhanka biyaha loona dabooli lahaa baahiyaha dhinaca biyaha ee deegaanada ay ka socdeen xubnahan ka soo qayb galay kulankaasi waxa ka hadlay Ibrahim Siyaad Yoonis maareeyaha wakaalada biyaha Somaliland waxaanu ka warbixiyay faa'iidada ay leedahay in si wada jir loo shaqeeyo isla markaasina la iska kaashado wixii ku saabsan dhinaca biyaha horna team badan oo ka mid ah inay u baxeen dibadaha sida Uganda kale oo soo workshop soo qaateen markasta waxaan u baahanaa waxaan soo barano ama halkaan ku barano ama in dibadda ku soo baranay in magaalooyinkeena iyo dadkeena ku fulino ama uga faa'iideyno dadkeena way aqoontu waa qof walba waxa aqoontu meel bi gaarsan tahay khibraduna in qof walba waa intuu shaqeeyay imika Uganda kale wakaalada biyaheeda oo magaalooyinka ama wadamada ugu fiican xagga biyaha qaybintooda iyo maamulkeedaba waa shirarba badan isku nimid oo ama noqoto